waxay ahayd bishii shanaad 18 1991 markii magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer lagaga dhawaaqay dib u soo noqoshada madax banaanida iyo go'aansitaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa maanta si ballaaran loogu dabaaldegay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer 23 guuradii ka soo wareegtay go'aansitaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ay haayeen kuwa ku labisan calanka astaanta waa Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale qalbiyadooda laga dheehanayay farxad waxaana bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kala qayb qaadanayay xuska munaasabada qaran ee 18 May mas'uuliyiin ugu horeeyay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland mudane Maxamed Jaamac Abgaal iyo waliba gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye duqa degmada Burco iyo mas'uuliyiin kale aad u tiro badan sidoo kalena waxay ciidanka qaranka Soomaaliland ee gobolka Togdheer ku soo bandhigeen intii munaasabadaasi xuska 23 guurada maalinta qaran ee 18 May ay socotay gaada ciyaar iyo walibana dowlatusyo waaweyn waxaana halkaas kala hadlay dadweynaha kala duwan ay ka soo qayb galay munaasabada 23 guurada maalinta qaran ee 18 May mas'uuliyiinta kala soo qayb galay xuska munaasabadani qaran ee 18 May waxaana goreentaba goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye ee duqa degmada Burco Sheekh Maxamed Yuusuf Muraad kuwaas oo ku dheeraaday ahmiyadda xusitaanka maalinta qaran ee 18 May iyo muhiimadaha kala duwan ay ugu fadhido bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan guud ahaan Soomaaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan hambalyeynaya dhammaanba ummadda reer Soomaaliland meel kastoo joogaan gaar ahaan ummadda reer gobolka reer Togdheer gaar ahaan magaalada Burco imika ka hadlayo waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxa aan anigoo ku hadlaya kana wakiila madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxa aan idinka sidaa hambalyo iyo bogaadin uu idin leeyahay ciid wanaagsan ku ciida dalkiina iyo dadkiina ilaashada waxa aan halkan ka soo jeedinayaa adduunka ummad waliba waxa ay leedahay national day bay leedahay ama maalin ay xustaabay leedahay dadka bacadka taagan ee salaadii subax waqtigii la tukaday halkan isugu yimi ee meel qaada iyo waxa weeye meel ay kala istaagaan toonala waxa halka ay u taagan yihiin waa qarannimada Soomaaliland iyo xuskeeda iyo sida ay qalbiga dadka reer Soomaaliland ay ugu tahay mid aad u ballaaran wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale iyo wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland mudane Maxamed Jaamac Abgaal oo halkaas hadal ka soo jeediyay ayaa bulshada kala duwan ee Soomaaliland ugu hambaliyay maalinta qaran ee 18 May waxaana sidoo kale mas'uuliyiintana ku dheeraadeen ahmiyadda iyo muhiimadaha kala duwan ee ugu fadhido maalintan ee shacabweynaha kala duwan ee ku dhaqan Soomaaliland waxyaabaha la arko ee muuqda ee qof walba arki karo qofna firi karayn waxa kamida waxyaabaha bulshada adeega bulshada biyaha kamida caafimaadka kamida tacliinta kamida nabadaynta iyo nabadgelyada kamida ciidanka qalabka sida iyo sida loo hagaajiyay kamida wadooyinka kamida insha Allah bisha May ee aynu maanta joogno 18keedii waa maalintii ugu horeysay ee aynu dib ula soo noqonno kuna dhawaaqno asagii oo hogaaminayay madaxweynihii koowaad ee Soomaaliland ee xilliga Cabdiraxmaan Axmed Cali isagii oo go'aan qaadasho dhiiran oo geesinimo la qaatay kuna ixtiraamayay rabitaanka shacabkiisa ayuu qaabta kaga dhawaaqay ilaahay amarkiisa waa Allah u naxariisto waan u mahad celinaynaa ageestoodana dadweynaha kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadaasi xuska 23 guurada 18 May wax ka weydiinay dareenkooda ayaa waxay yiraahdeen wallahi dareenkaygu aad iyo aad u maanta weeyahay waxaan ku qiimeeyay waxaan ku miisaamay mid la garan maayo waxa weeye waxaan marka ugu horeysa salaan kaliya laab ka soo goday u diraya dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland yar iyo weyn dibadiya gudaha waxaan leeyahay ciid mubaarak maanta maalin aad u weyn maanta waa maalin shucuurtada muwaadiniinta ku xasan tahay maanta waa maalintii qarannimada Soomaaliland waxaan leeyahay dhammaan shacabka reer Soomaaliland hambaliyo waxaan ku hambaleynayaa sanad guurada 3aad ee xuska qarannimadeena waxaan leeyahay shacbigeena
xayaanku hadduu fogaado ama geedi ku dheeraado dadka qaar baa daala haddaba reer Somaliland riska daali mayno kun sano haddana ugu qaadanayso اعترافkeena بالله توفيق. ياتي باللغة العربية. بصراحة اليوم احنا وايد فرحانين انه في هذا العيد مجتمعين هنا في ايربورت المطارات في برعو، وبصراحة حابة أبلغ تحياتي لرئيس جمهورية سوماليلاند أحمد محمد محمود سيلانيو وزوجته الكريمة. سوماليلاند حدودها كلا دوان قرن كان يكون يسيهاي سوغايا وأمانك dalka aad iyo aad u adkeeyay sidoo kale halkan waxaan habaliyo uga dirayaa shabakada caalamiga Ictiraaf News oo iyadoo ah shabakad ka howlgasha magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco oo aad iyo aad u dadaashay muddooyinkii ugu dambeeyay isagoo u horkacayo agaasima Khalid anigoo ah Aadan Cabdi Ciidle isla markaasina ka tirsan TV-ga caalamiga ah ee Hon Cable TV waxa aan ka soo qayb galay munaasabadda ballaaran ee 18 May lagu xusayo magaalada Burco anigoo ugu talagalay inaan halkaasi ku soo arko magaaladaas isla markaasina kaga soo qayb galo Ictiraaf News Aadan Cabdi Ciidle Burco xuska munaasabadda qaran ee 23 guurida ka soo wareegtay ku dhawaaqitaanka gooniisataanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay magaalada Burco tayalkii lagaga dhawaaqay 1999 bishii Janaayo 18 ayaa waxay ku soo gabagabowday jawi degan waa Khalid Bakeyle shabakada caalamiga ee Ictiraaf News magaalada Burco.